child is on the street. If we don't catch the abductor by day 1, only about 10% are ever solved. This is day 3. Do you know people in the neighborhood who don't? weligaa ma maqashay nin la yiraahdo Morgan Freeman? haddii aad wax badan daawato filimada Hollywoodka waxaa laga yaabaa inaad ogtahay inuu ka mid yahay aktarada Hollywoodka loogu tixgelinta badan yahay ee ku guuleystay marar badan bilada filimada ee loo yaqaan Oscar Prize. taasi waa waxay dhab ahaan ka yaqaanaan dadku aktarkan, balse wax fikrad ama ka haysataa halgankii uu soo maray ka hor inta aanu noqon atoore caan ah oo guulo waaweyn gaaray. Morgan wuxuu ku dhashay dalka Mareykanka taariikhda markay ahayd 1937 waqtigaas oo ku beegnaa waqtigii midabta koorka lagu hayay dadka madoobi oo uu aad u xooganaa, iyada oo ay ugu wacnayd dhibaatadan iyo cadaadiska midabta koorka. qoyskiisu waxay go'aansadeen inay u guuraan meel kale si ay u helaan nolol ka fiican ta waqtiga ka jirtay dalkooda. Morgan wuxuu jeclaa inuu noqdo aktar lacagtiisa iyo waqtigiisa inta badan ku bixiyo daawashada faflaanta. marar badanna wuxuu isku dayay inuu noqdo aktar caan ah, balse kuma uusan guuleysan. waqti aad u dheer kadib wuxuu is arkay isagoo duuliya ama bayloodka ah diyaaradaha militariga. waqti kadib Morgan wuxuu xaqiiqsaday inuu mihnada uu dhab ahaan u jecel yahay ay tahay aktarnimada, waxaanu go'aansaday inuu daba socdo oo aanu ka harin sidii uu aktar ku noqon lahaa. Morgan da'diisu waxay gaartay 45 jir isaga oo aan guul weyn gaarin, laakiin muu niyad jabin. wuxuu sii waday isku daygii, wuxuuna ku guuleystay markay da'diisu gaartay 50 jir, ilaa uu kama dambeystii matalay filimada caanka ah markay da'diisu noqotay 67 jir. Morgan Freeman wuxuu ku guuleystay bilada aflaamta kadib jilistii loo wada bogay ee filimka la magac baxay $1 Million Baby. haddaba daawaday casharada laga bartay noloshii Morgan Freeman. haddii aad wax badan ka ogtahay qaybta hoosena lagu soo wadaag. mahadsanid.